بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. waxaan joognaa clip meeshii maxay ahayto xafiiska kobciye maanta kulan gaar ah oo software-kii lagu soo bandhigayay ayaan maaragtay yeelanay xitaa waqtiga aan shiri jirnay waa ka soo hormarinay maadaama tiimkeena qaar ka mid ay galabta shirar waaweyn leeyihiin marka kulley tiimka ayagaa mid u hadlaya iyo waxaan meesha u imaanay maanta waxaan ka bilaabayaa Sheekh Bashiir Amaan oo awada taqaaniin oo reer Sweden ah. هاي شيخ بشير كسودو. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين ومتابعين بإحسان إلى يوم الدين. آديات بنقول فرحسنا حرمتي كوبعية إن نشوفه هرمركي أيام سعودة ما أنت وحلا صوب بندقي سيدي سيستم كي لغوش قيل لها ودتك الله بندقي لها رجل خبراء وحرفض له وكنت خص أرمها سنوصل بندقي waxaan ilaahay subxaana wa tacaala qaadirka ka rajaynayna kana baryayna inuu noona sahlo noona fududeeyo shaqadiina si horumara ay u socoto waxaan u arkaa guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed inay noqon doonto insha Allah tacaala khaasatan dadka danyarka oo u baahan oo tabaalaysan oo u baahan gargaarka waxaan rajaynayaa meeshii ummadeena laga horumarin lahaa inay noqoto insha Allah tacaala aad baa mahadsantiin jazakumullahu khayr. waa mahadsantahay Sheekh Bashiir German Kenny Professor Fido. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. runtii maanta waxaan ku faraxsanahay marka koowaad inuu Sheekh Bashiir nala joogo runtii oo maaragtay Sheekh Bashiir oo na geliyay muxuu ahaa dhiig cusub oo barnaamijkan aad iyo aad nagu dhiirigeliyay runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa mar haddana runtii muxuu ahaa waa soo wareegay intiisa badneed waana la joogi doonaa saasoo loogu wadi doonaa insha Allah inuu maaragtay nagu noqdo xubin aad iyo aad u firfircoon oo maaragtay si fiican oo dhaqaajisa alxamdulillah maanta kulankeena wuxuu ahaa kulan runtii aad iyo aad u fiican miro fiican badan dhalay wuxuu ahaa barnaamijkii website-ka iyo muxuu ahaa barnaamijkii online-ka sida la isugu xiri lahay qofka message-ka uu jawaab u heli lahay email-ka asagoo oo maaragtay foomka markuu buuxiyo runtii aad iyo aad barnaamijku u fiicnaay wax yar ayaa ka dhiman qaybaha kalena marka insha Allah waxaan ku ballanay qamiista kale inay soo dhameystiraan hadii Allah aad iyo aad mahadsantihiin jamaacada maaragtay ama groupka kobciye runtii waqtigu nagu dheeraada laakiin ma la fadhiyo oo dadaal ayaa la wadaa insha Allah wayna dhamaanaysaa hadii Allah guul iyo khayr insha Allah. jazakallahu khayran. Professor Fido Professor Maxamed Rashiid. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha kobciye meel walba ay joogaan waa salaamaya salaanta islaamka runtii maanta waxaan galnay kulan hawleed oo shaqo adag lagu qabanayo taasoo runtii markaan aragnay aad iyo aad aan ugu faraxnay baahidii meelihii aan ka baahnayn oo dhan Allah subxaanahu wa tacaala waxaad moodaa baryadiisii aan barinay inuu naga soo kabay oo ma aragtay dad khubaro ah oo aqoon durugsan u leh systemka intay yimaadeen runtii wax lagu kalsoonaan kara ah waana idinla soo wadaagi doonaa insha Allah markuu barnaamijku noo dhamaadayna annaga riyadeeni inay run noqotay ayaa noo muuqata waaba riyoonnay qaarkeen waxaan maraynay meel aad u sarreyso oo macnaha wax walbana ay yihiin wax aan qarsooneyn nin walba uu ogaan karo kobciye dhexdeeda waxa ka socdo systemka saasuu sheegayaa laakiin hadda waxaan ku koobnayn registrationka ruuxa sidii u diiwaan gelin lahaa online website intuu galo emailkiisa u geliyo uu u ogaan lahaa kadibna emailkiisa wixii dhaqdhaqaaqo ka socdo faa'iido iyo khasaaro iyo wax walba uu ka ogaan karo ayaa maanta aan ku guuleysanay maalinka khamiistaana waxa weeye dhamaystir fiican oo annaga inaan tijaabino lacago ku dirno ayaan rajaynaynaa oo aan tijaabo gaaban aan tijaabino kadibna lala wadaago xubnaha kobciye saasaan rajaynaynaa biidnillahi tacaala ducadiina iyo niyadda ruuxda oo la mideeyo insha Allah taasaan rajaynaynaa reer kobciye iyo adkaysi wax yar noo dulqaato inay wax naga halaabaan baan u daahaynaa wax ilaahina nagama haleynaayo ilaahan kala saaranayna ama sintii maanta waxaa sharaf noo ah in magala soo qayb galay walaalkeen Sheekh Bashiir oo aqoon durugsan u leh barnaamijkan wax badan nagu soo kordhiyay iyo ilbaxnimo iyo fikir badan runtii waan soconaa nin walba aqoon leh oo karti leh oo wadanka wax ku tari karana waan jecelnahay inuu nagu soo naga mid noqdo oo uu nagu taro oo dhinaciisa ka qabto cid lagu hadleynayo ma jiro ceel nooma qodna cidna nooma maqnaan annaga ahayn
ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa oo ka rajaynaynaa guul deg deg ah inuuna siiyo ummaddan khayrka iyo u jaheeyo khayraadkeeda. waa mahadsantihin. asalaamu calaykum waraxmatullah. السلام هذا منصتها برسوفي محمد رشيد على سو. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا دمان هركب عيك وبرتي ملك سجون فاميلي وين أو الصومال اللي قالوا مثلا الله درس اسكوج على هذا إني الصومالي اسكوج على هذا ربا إني وحصد السلام ودن كودا فقر يكسران ربا هذا أمور فرحسن هاي وحن أد سود وين أنهم خبرين يا شيخ بشير أو مثلا dadka khabiirku ah waxyaabaha aan ka shaqadan wadno insha Allah waxaan rajaynayaa in wax badan la qaban doono jazakallahu khair. waxaan rabaa marka inaan waxyaabo aan taabto yar yar oo marka qaar la soo dhigo oo dooda xoga dhaliya horta waxa waatiin waxaan u ordayno u dagaalamayno waxba inaan soo saarno wax sax ah oo hadii la soo bandhigo lagu shaqeeyo waxaan ka carayna waxa waa inaan waxaan soo barino lagu shaqeeyo wada qaldamaan oo qaldad badan ka soo baxo dadku ay faraad isku fiiqfiyo taasan diidayna. waxaan ka rabaa inaan tanbiih ku sameeyo in aan lacag kaasha qof cooperative-kan ka tirsan istaashada ka tirsan gacanta laga saari karin asalba. dadaa jira mataqaanaa lacag biira lacag aan bixinayna lacag keensada lacag aan siinayna kobciyana la dhahaa waxba kama jiro anaga kobciye waxaa la dhahaa iskaashada kobciye ama waxaa la dhahaa kobciye cooperative ama iskaashada kobciye lacag kaasha qof bani aadama gacanta lagama saari karo. lacagtu waxay aadaysaa xisaab waxaa ka bixinaya 5 saxiixayaal ka bixinaya waxaa laga bixiyana waad ogaanaysaa oo website-kaad ka helaysaa sababta loo bixiyay lacagta meesha lagu bixiyay qarashka xisaab xilman aan samaysanayna oo ku saabsan internal audited oo gudaha ah mataqaana la jeegareynayo internationalna waa samaysayna kii dawladdan waa imaanaya because ana waddanaan degana qasab wax qasban aan mataqaana nidaamka adeegayso ku qasban tahay marka yaan lagu bixinaysan dhicin qof inuu lacag bixiyo kaasha oo qof kale account ama telefoon ugu tuuraysan dhicin taas waa ka digaya haddan sheegaya. waxaa dhici karta in dadka qaarkood aysan ma fiirinay wax iska tuuraan dad lacag soo diray oo loo celiyay marka aysan dhicin in qof lacag cash ah lagu siinayo lacag soo diray oo diro aysan dhicin. koobiya cooperative kamid ma siyaasadeeda in lacag cash qof gacanta la saaro waa zero corruption ana illa bangi in lagu diro ma xisaabka bangiyada waa la yaqaanaa waxay ku qoran yihiin waa taqaaniin waxaa la soo dhigaa qolka bangiyadaas oo kobciye leedahay kobciye cooperative ay leedahay kaliya lagu diri karaa. marka taasaan rabaa inaan idin xusuusiyo sheekh bashiirna asaa idin siin doonaa kilib oo ku sheegayo arrinta nimanka lacagta qeybinaya sawirkiisa gashaday meesha inaysan waxba ka jirin asaa sheegi doono. waana mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad waa mahadsan tahay injineer cali sow. haddaan kusoo dhawo injineer ibrahim waa ninka website-ka noo sameeyey. kusoo dhawo injineer. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. reer kobciye aad iyo aad ayaan idin salaamayaa meel kastoo adduunka aad ka joogtaan. waa muddan soo wadnay kobciye cooperative howlihiisa intaan aan soo daahdahaynana ma aha inaan wixii ama si aan u samayna aan garan la-nahay ma aha. waxaan rabnaa inaan ka digtoonaano wax qalad ah inay nagu dhacaan. sidaas darteed hadda qeybtii ugu dambeysaan maraynay website-kii baan dhisnay maanta waxaan soo bandhignay habka qofka ugu noqon karo xubin qeybtii xubin noqoshada iyo qofka markuu xubin noqdo accountkiisa siduu ugala socon lahaa macluumaadka tiina maanta waa ku guuleysanay. waxaa noo dhiman hadda keliya inaan sharaxno oo inaan qurxino unbaa nooga dhiman maogi taasna waa lasoo gabagabeyn doonaa insha Allah khamiis iyo integrationka lacag bixinta ayaa ugu dhib badan. qofka markuu rabo meeshuu doono adduunka uu joogo in uu soo bixin karo online ha ku bixiyo ama offline ha ku bixiyo. intii waan ka guuleysanay hadda qurxintii yaa noo dhiman khamiista soo socotana insha Allah inaan soo gabagabeyno bixinta lacag sida loo bixiyo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa. marka aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi. calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu.